بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد ولا ليال مسجد كواكنا مسجد كان وحالي هذا مسجد بول بشارة وضدان وانو دسناي مسجدك وضدان waxay ahayd wada burbursan oo biyaha oo aan dadka mari karin dadka waayeelada oo masjidka soo galaya aan mari karin sida awgeed wadadan waxay la mid ahayd wadadan oo kale oo aad u jeedaan sida ay u burbursan tahay sidaan oo kale ayay ahayd marka anagu iyo marka iskaashanay dad kale oo walaalaha oo qurbaan jira oo axzaab aanu nahay oo wacna iyo dadkii gudaha oo masjidka ku dukanay intaan ayaan ka bidweynay marka wadadan labadaas dhinac ay dadka soo maraan oo tan iyo midda hadda tan waa aragtaan sidaana u wanaajinay tan waa sida u burbursan tahay sida awgeeda masjidkana wuxuu u baahan yahay waxyaalo fara badan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال وأن كاغم هاد علينا يا ددك أخيارتا النصر ديرتان سيدة ولالكين محمد أوكالي مسجدك وادو جيدان وحان نوغا ورمي شيخ عبد العزيز خير الله سيو هذا الكلام oo gooni uma baahna laakiin waxaan idin sheegayaa macnaha nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri man bana masjidan lillahi ta'ala bana Allahu lahu baytan fil janna qofkii ilaahay daraadiisa masjid u dhisa ilaahay wuxuu jannada ugu dhisayaa asagana u diyaarinaya bayt oo jannada lagu dhisaya marka ilaahay dartiisa qofkii masjid u dhiso gurigaas jannada ayuu asagana helayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku tilmaamay ay kutubta sheegayaan in mesela qofkii dhiso aqal shimbirad oo kale wax weyn ma ahan in la mid qofkii dhiso sidoo kale asagana jannada guri loogu dhisaya marka dhismada wax aad u qiimo badan waay dadkayna meelaha kale way dhisaan laakiin masaajida macnaha dad badan oo kamid ah ayaa saas macna u dhisan خير الله سي aad baan ugu mahad celinaya ajri xasanad la soo koobi karin sadaqaadka jaariyada ayuu kamid yahay masjidka dhismadiis macna in la dhiso saadarteeda marka masjidku waa beyd macna meeshii dadkii islaamka la isaga soo dumi lahay oo diinta laga asaasi lahay maxay la nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu ku dagay Madiino wuxuu ka bilaabay dhismaha islaamka masjid buu ka bilaabay maxay la meeshii ummadda muslimiinta diinta laga bari lahay laga waxay lahay way masjidku uu iska yar yahay saad baka arki doontaan meesha in la isku daro waan u baahanay in kor xoogaa loo qaado waan u baahanay in safiita noola gali waan u baahanay minaaradiisa waan u baahanay masjidka hawlihiisa masjidka way badan yihiin dadkii inoo yimid walaalkay maxamed kamid yahayna wuu u jeedayaa wuu arkaya saa warbixintayda dhameystiran sii doono marka ikhwaani filaahi waxaan idin leenahay ka qayb qaata sidaasna insha Allah ummadda kale oo muslimiinta oo muxsiniinta noogu gaarsiiya insha Allah wasaan in ku soo gudbinay idina noogu sii gudbiya ajri xasanaad baa kali doontaan waa musqulihi waa saddex musqul ayaan ka suubiyay suuqa la yiraahdo sida awgeed halkan waxaan suubinay tabada dadka musqulaha galay xaagtan bay ku shubanayaan saasay suuli ku aadayaan hadhowna halkan ku raacsiisanayaan saasay weysan ku aadayaan marka sida awgeed sida dadka aftiin oo helo waxaan gelin taageedaan oo ilaaska bixinayo qaybtan waa qaybta aan dhisnay waxaan soo binay ballootooyinkaas halkaan birtaan waxaan soo binay dadku oo waayeelada oo masjidka imaanaya oo weysada fariisanaya waa ujeedaan qofka markuu weysaysto oo sababta kaabiya oo weysaysto markuu soo kaca halkaan u qabsana sida awgeed inay dadka tasiilaadkooda oo u fududeysa ayaa u soo binay
walaalayaal masjidka gudihiisa ayaan soo galnay sida awgeeda masjidku waa u jeedaan saqafkii oo hooseeya dadka kuleel iyo qorraxda soo jiidayso marka waxaan doonaynaa qaybtan iyo qaybtaas kale inaan isku darno qaybtan dhexe inay baxdo oo masjidka la weyneeyo kaas iyo kana isku darsamaan kana kor loo qaado markaas hal mar la isku daboolo safiito la geliyo wuxuu u baahan yahay mutuleel dhigo wuxuu u baahan yahay howlo badan waxaa ka mid ah bulkeeti aan u baahanahay masjidku waa bulkeeti adiga 6 fiilo lagu daro kool daraha la xiro 2 jeer wuxuu u baahan yahay mutuleelkaasoo la dhigo wuxuu u baahan yahay albaabada naftirkooda waxa waaye hadda albaabadiisaan ku celinaynaa oo hadda albaabo kale qarashaadkii waa dhibbay noqonayaan marka waxaan u baahanahay masaajidka ma laha sheeg midnaarad ma laha waxaan rabnaa inaan midnaarad noogu yeeshaan iyagana marka hadda qaybta gudaha ayaan gelaynaa marka qaybta gudaha waa tanaa waa u jeedaan safiito ma laha buuna hooseeyaa marka qaybtan in 6 fiilo lagu daro oo la wareejiyo qaybtaasna la isku furo la israacsiyo waxaan doonaynaa saas waaye in minaaradna lagu suubiyo masjidka oo alxamdulillah masaajidka minaarad la'aan ayaa haydo hadda gudihiiba sidaan ka yahay rinjigan hadda waxaan marinay ciidi dhammaan walaalahay waan salaamayaa muslimiinta ah meel kasta ay joogaan inta muuqaalkani gaadho ama codkaan maqasho si gaar ah waxaan u salaamayaa walaalaha qolka sadaqal jaariya sadaqatul jaariya la baxay roomkaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin hablaha iyo inta kale garab taagan walaalaha ah ee taageeraysaba waxaan rabnaa maanta booqashada masaajidkan masjidul raxma ama buur bishaaro ku magac dheer waa masaajid qadiim ah toddobaatanaadkii bilowgiisii la dhisay jiilal fara badan ay ku soo xifdiyeen quraanka kariimka iyo culumta sharciga ay ku soo barteen culumo ay isaga dambeysay dadkii aasaasay maanta intooda badan adduunka ma joogaan laakiin waa sidaas warataan soo nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam 3 majaal oo waxa jira oo khayrkoodu una go'in hatta qabriga inta lagu jiro ilaa qiyaam saaca uu soconayo sadaqa jaariyadana kamida marka idinkuna sadaqa jaariya baad la baxdeen sadaqa jaariyadaasi waxa weeye waa lagu intifaacayaa inta intifaaceedu socdo oo dhanna ajrigeedii waa soconaya walow saaxiibaha qofkii lahaa qabriga baa ku jiro marka nin dhintay oo cibaadeysanaya ama qof muslim ah oo qabriga ku jira oo haddana salaadii kastoo la tukado iyo quraankii kastoo la aqriyo iyo khayrkii kastoo meesha laga sheego oo qayb ka leeyahay wax la heli kara maaha masaajidkan waxaan ku baaqaynaa sida ilaahay uu yiri subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan khayrka aad isku bahaysateen dhammaan muslimiinta meel ay joogaan ayaa aayadda quraanka la hadlaysaa wa ta'awanu iskaalmaysta ibn qayyim al-jawzi iyo ibn kathir iyo suyuti iyo shaatibi markay ay fasirayeen aayadaas hadalla isku eegeeg ayay ku fasireen oo waxay yiraahdeen 3 waxyaaboodba muslimiinta baahidooda way kalifaysaa inay iskaashadaan waa midda koowaad muslimiintu markay gacantooda isku darsadaan wax weyn baa qabsooma oo qof iyo laba aysan qaban karin markii la isugu tago waa meel sare la gaarsiinaya wax tayo leh oo quality-na waa la sameeynaya midda labaadna ajrigii ay heli lahaayeen baa ilaahay laba laabaya salaada la wada tukado 27 darajo weeye baynama mid qofku keligii uu tukado ay 10 darajo tahay marka laalaabka salaada la laalaabayo waa isku imaanshaha saxaabadu waxay yiraahdeen xilligii nabiga kaleey salaatu wasalaam masaajidka aan wada dhisaynay masaajidka markaan wada dhisaynay waxa anagu waxaan qaadaynay hal xabo labina laakiin Ammar bin Yaasir laba ayuu qaadayay nabigu intuu aad ugu bogay ayuu meeshii tunka u saarayay dhoobada ama labanka uu ku gurayay Ammar bin Yaasir ayuu gacantiisa sharafta kaga tirtirayay raali sidoo uga yahay daraadeed uu gacantiisa kaga tirtirayay isagoo muslimiinta ku boorinaya in la iska kaashado masaajidda dhismaheeda diinta faafinteeda muxuu ahaayay agoonta iyo dadka danyarta ama waayeelka aan wax qabsan karin iyo araamisha daryeelkooda meelaha uu nabigu sid gaar ah uga dardaarmay wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa markii la fasirayay ayay kamid ahayd midda saddexaadna waxa weeye baahi weyn bay muslimiintu maanta u qabaan dadka kale walaalahooda qofna kalidiis waxba ma noqon karo man kana fi haajati akhihi kana Allahu fi haajatihi muslimiintu markuu waa isku wadadan dadka xaafadan degan
ahlu khayr waaye ahlu baraka waaye aniga xaafad kale hadda ka imiday laakiin masaajidkan markaan arkay dadka ku hareeraysan badankoodu meesha waa meel abusiibo oo magaalada xataa cabiran aadka amaaha dadka degan badankoodu waa dad danyar laakiin waa dad isku duuban oo isjecel oo kunka shilin ee Soomaaliga iyo nus doolarka ayay isku daraan markaas waxaas rabadaantii la qurxiyay ranji la mariyay Google la dhigay waxaas oo xaafadda dadaalkeedu way khayr Allah siiyay marka waxaan rajaynaynaa marka gacanta qolka sadaqa jaari ay ku soo biirto masaajidkan inuu dabaq noqdo ilaahay dankiis masaajidkan inuu dabaq noqdo ayaan rajaynaynaa qaybta tacliintana si gaar loo dayactiro qaybahan kale xilxiran waxaan ku talin lahaa in la isku wada furo masaajidka dhibsiis wuxuu guriga kaga saalan yahay 4 darbi oo waaweyn baa la wareejinayaa oo shub fiican leh korna waa loo yar qaadayaa si hawo fiican loo helo والسلام على رسول الله أما بعد ما أنتوا حلا جوجنا مساجد كي بشرى حافظ بولا بشرى كيالا مس بولا بشارة كيالا ما شاء الله حافظا ما شاء الله ما أنت عبد العزيز أيام ودي جوجنا مشان مساجد كوا إيماني مركب مساجد ما شاء الله قل كان وقول دكسية وإلما قرآن كبرتان قرآن كريم كه يلقوا تلقى قول ير وأنا يريه ما شاء الله marka ilaahay khayr aan siiyay gabdhaha la baa qolka sadaqatul jaariya walaalayaal masaajidkii maanta waa imaaday waana jooga marka hatta sifiitan malahan waa kulliya masaajidka waxa la yiraahdaa dugsiga quraan kariimka marka 4 mitirna waa yaryahay ma sha Allah soo noo sheegay iimaanka masaajidka marka ma sha Allah qaybtaana waa qaybta musqulaha lagu talagalay weysqaadka waay marka hamiga ugu badan aad maanta baahida ay qabaan masaajidka waxa kamid ah meeshan ayaa zaid u yar meeshan jeegadu ku taalo zaid ay yar tahay meeshan marka space badan ayaa marka waxay rabaan marka in la isku furo دربيجاس لحد كويا إن الجبيو كان لو كانوا مساجد كان هل مر البلاريو كان حوا كرلو قاضو هذيك تير كان كرلو قاضو هذيك إلا مش متاس إلا جارسي إلا ميرجاس إلا جارسي إلا حد كاس مساجد وين لقى رجع يهربان إن شاء الله بهذا وبدن منارد لفسي منارد مساجد كمنارد يسوى هو سيسا مناردنا وبهني هاي منارد ما ولا هم منارد الآن واي مركين منارد الله اسمه ربالة مساجد كا مركب ما شاء الله قبلها قلت استغطوا الجارية بحي ولا ليال وما سنتين جزاكم الله خير الجزاء مركز بدال يجهد ياكل بإحسان الماء أقوان وحواسيسان عيال وكغير بغاتين مساجد وكغير بغاتين إلهي أبدكين هذيك نقول دفاعه مركب ما شاء الله وحد لنا ولا عبد العزيز بنت وادي جوجنا شيخ عبد العزيز مسجد كان واقع معنا ويا مركب ما شاء الله واي مركب باهظ وبدن وحواي دربي كان أحد لفوجيو مساجد قيبتان لو درو مساجد وين سوق النقطة يمينار الله دسو marka lacagta galayso insha Allah kulleeyba wixii gali doono insha Allah Abdulaziz ayaan ugu warmi doona insha Allah kulleeyba lacagta galayso marka asala wadiina marka insha Allah wax ku bixi doono insha Allah waana wareysan adila ka baahida inuu soo gudbiyo muhiim ahayd marka masaajidka waa dhisan yahay waxada rinjiga waxa la meeyay maalinta ciid ayaa la mariyay asagana masaajidka dartan waa baad mar dhow la dhisay waa cusub yahay marka ma sha Allah marka gabdhahaas walaalayaal waxaan u codsanaa marka insha Allah waxad awoodaan inuu qof kasta ka qayb qaato masaajidkan dhismihiisa bismillaah ugu horeen waxaan halkaan aan ku soo diyaarinay qiimeyntii masaajidka buur bishaaro qiimeyntaas oo ku soo saleynay kor u qaadis tiirar dhaxda la gelinayo mutuneel dhulka ah mutuneel derbiga ah la cuskanayo safiito oo dhaxda safiito oo BVC safiitada cusub oo hadda la saaro guriga BVC-da shameendadii caradii jaay birta shubka alwaax laamiyeri oo tayo leh oo laamiyeriga oo bacweynaha waaweynka ah BVC-da oo safiitada hore aan ii sheegay mutuneelo bulkeetiga galaya masaajidka rinji intaas oo ku kacday iyo waxaa dheeri ah farsamadii gacanta shaqaalaha qabanaya oo loo yaqaano maandoobaro intii markaa isku soo xisaabinay oo soo dejinay waxaa tuutalkii noo soo baxay $11,671 intaasoo qiimihii aan ku soo dejinay oo warqadiina aan ku soo diyaarinay masaajidka aan u keenay sida oo nii muuqato